Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta oo Khamiis lagu qabtay doorashada afarta kursi ee maamulkaasi uga harsaneyd xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Ilaa 8 musharax oo ku tartamayay doorashada ayaa xildhibaanada Jubbaland ay marka hore dhageysteen hadal jeedintooda iyagoo dalbanayay mid walba in codka la siiyo. Kursigii ugu horeeyay waxaa ku tartamay Xasan Daahir Yarow iyo Cabdi Xuseen Cali waxaana kursiga aqalka sare ku guuleystay Senator Xasan Daahir Yarow isagoo helay codad gaaraya 59 cod. Kursiga labaad ee aqalka sare waxaa ku tartamay Ibraahim Awgaab Ismaan iyo Farxiyo waxaana kursiga aqalka sare ku soo baxay Ibraahim Awgaab Ismaan oo helay 57 cod. Kursiga saddexaad ee doorashada aqalka sare ayaa waxaa ku tartamay Leylo Nuur Maax iyo Xareedo Maxamed waxaana kursigan ku guuleystay Leylo Nuur Maax oo heshay 63 cod halka Xareedo Maxamed oo la tartamaysay ay heshay 9 cod. Kursiga ugu dambeeyay ee doorashada aqalka sare ee Jubbaland ayaa waxaa ku tartamay Maryan Faarax Kadiye iyo Samsam Maxamed Bashiir waxaana kursiga aqalka sare ku guuleystay Maryan Faarax Kadiye oo heshay 50 cod. Maamulka Jubbaland ayaa noqday maamulkii afraad ee soo gabagabaya doorashada aqalka sare waxaana la filayaa in dhawaan maamulka Galmudug uu soo saaro labada kursi ee uga harsan aqalka sare si loo bilaabo doorashada xildhibaanada aqalka sare ee golaha shacabka. maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo. Macmiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo, Wi-Fi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.